kulan wanaagsan daawadayaal isjiijid iyo weliba dagaal dheer kadib isafgarad ayaa laga gaaray wadahadaladii wadankaasi Pakistan ka socday qodobada dhiman miyaa lagu heshiin doonaa oo la dhameystiri doonaa maxaad ka ogtahay xaaladihii ugu dambeeyay iyo weliba ilbiriqsigii qarka loo koray mar kale in dagaal uu ka qarxo mandiqada bariga dhexe maxay saahayd ilbiriqsigaas siyaasa sabab u ahaa sheekooyinkii ugu waaweynaa ayaan soo qaadi doonaa odaygii Trump ahaa oo dhulka lagu jiiday barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa oo aan kugu hayaa qodobada kale barnaamijka aan kugu hayo maxaa ka soconaya koonfurta dalka Lubnaan iyaguna waan ku soo gudbin doonaa dagaaladii qaraara ee deegaanadaasi ka dhacay sidoo kale warar kale oo ku saabsan dawladda Iran iyo waliba hanjabaadii Mareykanka maanta ay u jeediyeen askar kaga dhaawacantay ciidamada Israa'iil dagaalka maanta ay galeen ayaa sidoo kale barnaamijka kugu soo gudbin doonaa iyo waliba ugu dambeyn Sacuudiga iyo Pakistan oo iyagu markaas hirgeliyay qorshihii difaaca Sacuudiga ciidamadii ugu horeeyay iyo waliba diyaarado fara badan oo dalka Sacuudiga la soo dhoobay soo dhawaada daawadayaal channelka subscribe saaro si share gare saaxiibadiina la wadaaga meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal soo dhawaada muuqaalka si share gareeya haddaba aanu ku bilownay warbaahinta dalka Iran ayaa si rasmi ah waxay u baahiyeen in wadahadaladu ay noqdeen kuwo positive isla markaana wada wanaagsan haysta maanta oo Sabtiya wadahadallo toos ayaa waxay uga furmeen dawladda wadankaasi Mareykanka iyo waliba dawladda Iran iyo dawladda Pakistan oo dhexdhexaadinaysa magaalada Islamabad saaka goor hore ayaan ka sheekeynay hotelka Sarene ee la dejiyay amniga sidoo ahaa diyaaradaha dagaalka hawada ku sugnaa iyo wax walba oo ku saabsan sida ay ku bilowdeen wadahadalada laakiin wadahadaladaasi dawladda Mareykanka waxa uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance isagoo ay la socdeen ergeyga marka Donald Trump aad ugu kalsoon yahay Steve Witkoff iyo waliba Jared Kushner labadu kala ma haraan waa laba nin oo ganacsiga iyo waliba in wax la isdhaafsado iyo kala iibsiga iyo dalaalka aad u garanaya dhanka kale dawladda wadankaasi Iran waxay soo dirsatay rag kale oo qubarra oo aan sahlanayn haddii ganacsiga ay ku fiican yihiin kuwana dhanka diblomaasiyadda ay ku fiican yihiin dawladda Iran Mohammed Baqir Qalibaf gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale ku darso ninkii wasiirka arrimaha dibadda ahaa Abbas Araqji waxa uu ahaa ninkii markaasi sida tooska maanta sabab ugu ahaa in wadahadaladu ugu yaraan ama markaa wada wanaagsan la isla qabsado haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in aad iyo aad la isu jiijiday saacado fara badanna la ishayay wakaaladaha wadanka Iran ee Faris iyo waliba Tasniim labaduba waxa xaqiijiyeen horumar in laga gaaray wadahadalkii socday waxaana la yiri weerarada Israa'iil ay wado yeysan wada joojinin xataa laakiin magaalada Beirut gaar ahaan qaybta ay degaan dadka ku abtirsada ama ay ka soo jeedaan xisbiga ee Daahiya al-Januubiya yaan la duqeynin markaa ugu dambeyn waxa leeyahay sidaas bay wadahadaladu ku bilowdeen waxaana la ogolaaday in markaa Mareykanka in Israa'iil uu ka dhaadhiciyo gibi ahaanba magaalada aysan duqeynin laakiin dhanka xadka ay ka socdaan dagaaladu markaa xadku ma sahlana dhalinyaro aad dagaalamaysa ayaa u joogta xisbiga maantana khasaare fara badan ay gaarsiiyeen Israa'iiliyiintu lafsadoodu haddaba wadahadaladu waxa leeyahay waxa looga hadlay umuro dhowra Mareykanku wuxuu ogolaaday dhaqaale fara badan oo kaga xayirnaa dawladda wadankaasi Iran bangiyo badan oo caalamka ah in loo ogolaado lacagahaasi wax weyn ay ka tari doonaan waana bilaayiin dollar markaa dawladda Pakistan waxay sheegtay in juhdi ay ku bixin doonto sidii wadahadaladu ay u noqon lahaayeen kuwa miro dhala markaa waana wax wanaagsan runtii sida ay dawladda Pakistan juhdi ugu bixisay sidii ay u miro dhali lahaayeen haddaba Kadhim Gharib Abadi oo ninka wasiirka arrimaha dibadda Iran ku xiga oo isagu qayb ka ah wafdigan ayaa waxa uu sheegay markaasi dawladda Tehran inay dhab ka tahay oo ay markaa ka labalabeyneen wadahadalkan waliba ragga la soo diray waxay ahaayeen rag aan sahlanayn waxa ku jiray diblomaasiyiin saraakiil sarsare oo kacaanka ka tirsan baa ku jiray waxa ku jiray rag aad iyo aad khubaro kuwa dhanka dhaqaalaha oo aad looga dambeeyo
oo qayb ay ka ahaayeen sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Khubarada Iiraaniyiintu waxay daraaseeyeen wax kastoo ay soo bandhigeen dowladda Mareykanka, laakiin mar kastaba qadabaa la aadaya waa la soo noqonaya, salaadii casir baa la aaday waa la soo noqday, maqribadii baa la aaday waa la soo noqday, aad baa la isugu rafaaday. Markaa saacado yar ayaa la tilmaamaya kadib in si rasmi ah qalinka lagu wada duugi karo qodobadii lagu heshiiyey. Laakiin sida hadda ay wax u socdaan, haddii ay ku sii socdaan, waxaa leeyahay dowladda Iiraan ugu dambeyn guul ayay gaari doontaa, maxaa yeelay inta badan waa la aqbalay waraaqaheedii. Arrinta Lubnaanna barbaaba la aqbalay. Markaa waxaa la aadi doonaa 2 toddobaad oo markaa heshiis is-afgarad buuxa in loo bedelo, isla markaana waqti xaadirkan waxay noqon doontaa heshiiska la saxiixi doonana uu noqonayaa heshiis dhammaystiran oo xabad joojina, markaa sida wararka hordhaca ay sheegayaan. Laakiin maanta marbaa sheekadu waxay ku dhowaatay gibi ahaanba inay qaraxdo. Markaa ninkii Trump ahaa wuxuu iska soo jaray warkan, waxuu yidhi isagoo wadahadalkii loo fadhiyo ayuu soo diray maraakiibtiisii, isla markaana yidhi marinka Hormuus aada. Waxaa laga warhelayba maraakiibtiisii oo ka soo sharaacday dekada Fujairah magaalada la yiraahdo Imaaraadka Carabta ku taala, isla markaana marin biyoodka Hormuus ku soo socda. Markaas baa la yidhi halowda lagala hadlayo dhanka wafdiga, waxaa la yidhi dadkii reer Mareykan khiyaano bay soo wadaanoo markabkii bay halkan u soo direen. Cabbaas Caraqji raggiisu fadhiga bay ka istaageen, waxay yiraahdeen halkana waa nagula hadlaysaa, halkaasna markabaad geenaysaa, say wax u wadaa. Saas maahan. Dowladdii ciidamadii kacaanka waa soo hadleen, waxay yiraahdeen anagu waxaas ma naqaano, 30 daqiiqo gudahood. Haddii waa 30 daqiiqo wakaalada Faris sida qoraalka baad ka arkaysaan, 30 daqiiqo haddii ay sidan u soo socdaan oo xaggeena ku soo socdaan, gantaalla baan la dhacina, dhulkan dhigana waana burburinaynayo, waa digadaa laga dhigaya. Dambas ayaan ka xignaa bay leeyihiin inay noo soo dhawaadaan. Markaa ciidamada Iiraaniyiintu toos bay ula hadleen. Markaa dhinacyada wada hadlayay, haddii markabkan burburiyaha dekada Fujairah ka soo dhaqaaqay marinka Hormuus ku soo dhawaado, anagu waa burburinaynaa bay yiraahdeen. Fariintaasina waxay ahayd mid toos ah. Markaa aakhirkii waxay noqotay markaa kala wareeg baa ka dhacday. Iiraan waxay tiri markab yahow kala wareeg, waa la kala wareejiyay. Markaas bay Axios iyo kuwa kale Trump ku soo daabacdeen oo yiraahdeen markab baa maanta markaa meesha maray waana ku soo noqdeen. Markab warku meesha inuu mari karin waxaad ku ogaanaysaa halkaasi miinooyin baa ku daadsan. Saakadii hore waxay iska soo jartay Iiraan waa badan yihiin markaa miinooyinka sidan u gelinay iyo goobahan gelinay ma xasuusanaba camal. Waaba la yaabay markaas warniyo si wax wadaa baa la yiri. Haddaba wakaalada wararka ee Tasniim waa beenisay, waxay sheegtay Axios waxaana yiraahdeen diyaar iyagu inay u ahaayeen, isla markaana ciidamada ilaalada kacaanku ay wada burburin lahaayeen haddii la isku dayi lahaa in xoog markaa markabkaas uu soo goobta ku soo gaaro. Haddaba ragana waa kana oo wiilkii Sodoga u ahaa, waxaa leeyahay maalinimada Axadda ah ayaa la qiyaasaya in ama caawa midood in markaasi la soo gabagabeyn karo wadahadaladana la soo afmeeri karo, markaa oo waliba heshiis la saxiixi karo ama Britole ama ilaa caawa waxbaa laga sugi doonaa. Markaa wararkii ugu dambeeyay dalka Lubnaan sheeko baan kaaga hayaa. Dalka Lubnaan halkaa dagaalada ka dhacayay, haddii qayb ka mid ah xabajoojintu Daaxiya al-Januubiya loo nabadgeliyay, iyagu waa sii dagaalami karaa maxaa yeelay caruurtoodii iyo eheldoodii baa jooga halkaas oo aad loogu xasuuqayaa. Xisbigu waxaa la tilmaamayaa in ay weerareen deegaanka lagu magacaabo Shumeira, diyaarado aan duuliye lahayn ayna ku weerareen sida telefishinka Al Jazeera uu isagu baahinayo. Sidoo kale halkaa kaliya ma ahayn, waxay duqeeyeen deegaanka lagu magacaabo Bintu Jubayl iyo Maroon Ras oo ah dhul Lubnaan leeyahay. Laakiin maalmihii ugu dambeeyay Iiraan marka la eego waxaan ka hadlaynaa Israel ay awoodeen iyagu inay ku soo ruqaansadaan oo iyagu deegaanadaasi ay soo gaaraan. Dagaaladii ugu dambeeyay maanta dhex maray xisbiga iyo waliba Israel waxaa ku dhaawacmay 2 askari sida warbaahinta Israel ay sheegayaan. Markaa xogtana halkaas ayaad ka arki kartaan. Markaa sidoo kale 16 digniin ayaa laga maqlay markaa 20 mandiqad oo ka tirsan waqooyiga Israel kadib markii weerar xoogan dagaalyahanada xisbigu ay ka fuliyeen. Xisbigu si carale ay markaas iyagu uga jawaabeen oo si baan ay u duqeeyeen baa leeyahay. Wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan maanta waxaa dhacday dhacdo kale oo aan sahlanayn. Marka la eego gudaha dalkaasi Lubnaan,
xukuumaddii halkaasi ka jirtay waxay dooratay in dagaaladu ay sii socdaan. dabcan dhanka Lubnaan ma sahlana, xukuumadda halkaa ka jirta waa xukuumad inta badan lagu eedeeyo inay markaa aad iyo aad ugu jajaban tahay Israel beddelkeedii inta ay ilaa markaa Lubnaaniyiintu badbaadin lahayd. xukuumaddan waxaa la tilmaamayaa markii la yiri Iiraan baa wadahadalka qaybka oo rabta in wadahadalka la dejiyo, waxay yiraahdeen maya ma rabno, Iiraan waxay wada iyo Pakistan waxay wadaan, Israel baan ka xignaa. Israel baa markaa ay la xiriireen, waxay Israelna soo gaar, wadahadal baa la furay marka oo la yiri Washington baa la isugu tagayaa. Hezbollah waxay yiraahdeen haddaad la hadlaysaan iyagu annagu 15 bilood ka badan sanad iyo barba markaana la dilay waxyeelayna soo gaaraysay aan dhibtoonaynay, bal maxaad idinku qabateen, maxaad ku soo kordhiseen markaa oo dagaalka joojiyada lahayn idinka dawladda xil saaranay maxaad qabateen? waad awoodi weydeen Soomaa. hadda annaga xooggeena ku raadsanayna, aakhirkiina waxaan heli karno waan sameynay, waana markaa dagaalamayna. hadda waxay noqotay dadkii ku abtirsanaya xisbiga inay ku daataan markaa xarumihii waaweynaa ee dawladda, halkaas iyagu ay isku fidiyaan markaa. taasina waxay keentay markaasi caro xoogan oo dadweynaha dalkaasi Lubnaan. marka Lubnaan waxaa laga baqayaa Israel waxay ugu weyn ay doonayso dagaal ahliya mar kale inay Lubnaan ka rido, sababtoo xisbigu dadkiisu waxay rabaan in aan lala gelin wadahadal toos ah. sidaas buuna dhigayaa dastuurka Lubnaan. madaxweynaha oo masiixiga ka soo jeeday iyo ra'iisul wasaaraha oo sunniga ahna waxay leeyihiin annagu waan baxaynaa, toos baan Israel ula hadlaynaa. iyagana deegaanadooda ma ahino deegaanada la garaacayo dhibta ay gaarayso, waxaa degan deegaanada xisbiga ama dadka shiicada. marka qoorta waa la isugu jiraa dhanka Lubnaan oo ma la garanayo. ra'iisul wasaaraha caluushud u shaqaysta ayaa lagu tilmaamay, aad baana loo cambaareeyay marka la eego Nawaaf Salaam, kaasoo isagu yiri Israel baan anigu la wada hadlaya, idinku waxaad doontaan sameeya. markaas baa lagu yiri adigu dhulka ma maqnee, dadkan meel kale baa marka wax lagaaga soo yeerinaya, laakiin waan arki doonaa. marka xisbigu way hanjabayaan, waxaana dhici kartaba dagaal ahli inuu ka dhaco dalka Lubnaan, aad baa loogu baqayaa. markaan eegno Tucker Carlson, weerarkii adduunka ayuu ku qaaday ninkii ahaa Trump isagu saacadihii ugu dambeeyay waa soo hadlay, isaga iyo Tyler Green iyo rag iyo gabdho fara badan oo caan ah oo ka tirsan maaga muxaafadiinta ayaa markaa isagu weeraray. laakiin Trump baa usoo jawaabay, Trump waa loo soo jawaabayo waxa u soo jawaabay ninkii Tucker Carlson ahaa. waxuu yiri ixtiraam ayaan ku hayaa Trump, sababtoo adiga waxaa tahay buu yiri adoon baa tahay, ma tihid shakhsi awood u leh, naxariis baan ku fidinayaa buu yiri, maxaa yeelay qof la adoonsanayo xoog aan lahayn. weliba saxufigan wuxuu leeyahay mid baan idiin sheegayaa, ninkan cajal baa laga hayaa buu leeyahay. cajalka laga hayo waa cajal isagoo wax walaxaynaya oo laga qabtay 9meeyadii. waa haystaan iyagu ay mar walba waxa la soo hordhigaya oo Trump uu soo dhawow ay cajalkan masiideynaa mise dagaalku waa galaysaa. marka wuxuu leeyahay Netanyahu isagaa xukumaya, ninkan waxba kama go'aanka Netanyahu baa markaa gacantiisa ku jira, maadaama wuxuu ka hayana waa ku adeegayaayo wuxuu doono buu isagu ka samaysanaya. marka xaaladdu ma sahlana. wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in sheekadu dhanka Lubnaan aysan sahlnaan doonin. ugu dambeyntii dalkaasi Saudi Arabia wuxuu hergeliyay heshiiskii Pakistan kala dhaxeeyay ee wadajir in markaa Saudi Arabia loo difaaco Pakistan iyo waliba dalkaasiba. dabcan Pakistan diyaarado iyo waliba ciidamo fara badan ayay keeneen, aakhirkiina waxa leeyahay waxay doonayaan waqti xaadirkan Pakistaniyiintu inay Saudi garbistaag ay sameeyaan. Sacuudigu waa yaabay kadib markii baarka looga dhacay wadamadii kale ee markaa xulafada ahaa ee khaliijka, kuwa kalena iska bixiyeen laaluusheeda walaalayaal, kuwa kalena Israel gadaal iyagu u galeen. Sacuudigu Israel ma soo socoto, Mareykanna waa ka tagay, see la yeelayaa baa la yiri. marka war Pakistan igaarsii wiir Pakistan iga geey, Pakistan baa la geeyay. marka halkaas baa ciidamo Pakistan u soo dirtay oo waxay leeyihiin markaa madalada diric buu noqonayaa, isla markaa ilaalin doona wadamada khaliijka markaa caalamul islaami. okay, hadday sidaas tahay Iran caalamul islaami ma ku jirto miyaa? marka ilaan Israel lagama baqaye, waxaan loo sameysanayaa waxay tahay Iran darteed. marka waa ka aad baad u mahadsantihiin daawadayaal, channel subscribe saaro, sii share gare, mahadsanidin.